kusoo dhawaada dhalinyaro cashirkeena maanta waa taxanaynii Python maanta waxaan qaadanaynaa hoos wadaynaa list waxyaabo ku saabsan list hore soo tilmaamnay balse maanta waxaan isleeyaynaa qaab faahfaahsan oo loo isticmaali karo list waxyaabaha aan baran doono waxaa ka mid ah sida list wax loogu daro sida wax looga saaro iyo qaabab kale okay hadda ka bilaawno inaan marka ugu horeysa samayno list xoreyna listi kadibna just lambaro ayuu may qoraynaa 1 2 3 4 5 okay taba hadaynu rabno inaan listka wax ugu darno inagoo aan isticmaalayn tusaale ahaan listkan waxa uu ku yaalaaba line boqol code ah ayuu xagga ugu horeysa ku yaala intaan markastaba xagga hore iman lahayn aynu wax ku dari lahayn listka waxay nooga fudud inagoo isticmaalna list.append waxa uu sameynayaa in listka xagga dambe kaga daro lambar iminka wixii halkaa ku qorna haddii ku qorna iminka halkaa tusaale ahaan 8 haddii ku qorno kadibna naga soo daabacno listiga aan raahno print list waxay noo soo baxaysaa in xagga ugu dambeysa 8 laga daray ujeedaa xagga ugu dambeysa laga daray haddaba okay mararka qaar haddaba waxaa u baahanaysaa inaad xagga dhexe ama meel dhexe wax kaga darto haddii u baahan tahay inaad meel dhexe wax kaga darto waxaad isticmaalaysaa methodka loo magacaabo insert tusaale ahaan xoreynaa list.insert waxaa kuu sameynayaa inuu meel dhexe wax kaga daro waxaan xoreynaa pointiga ama meesha labaad waxaad ku dartaa lambarka loo yaqaano 10 okay hore waxaan soo marnay in xarafka koowaad uu yahay 0 marka laga eegayo qaabka u socdo ka wareegay yahay 0 waxa ku xigay kan oo noqonaya 1 2 3 4 saasay u soconaysaa marka halka waxaan idhi meesha labaad waxaad gelisaa objectiga lagu magacaabo 10 haddii soo daawacno listka mar labaad run waxaa soo baxaysa meeshii labaad oo ah 3 lagu daray 10 marka waxaan idhi kan waa 0 kan waa 1 kana waa 2 ma fahanteen marka sidaas ay ugu dari kartaa darata meel dhexe darata meesha ugu dambeysa oo ah 7 dadota meesha ugu dambeysa oo ah number 5 ayaa xagga daraysa objective 10 dan soo daawacno lambarka meesha shanaad waxa laga daray number 10 ee lagu daray okay intaas misla fahanay haddaba haddii aad rabto inaad listka wax ka saarto laba qaab ayaad wax ka saari kartaa inaad marka ugu horta tiraahdo remove adna list.remove kadibna waxay noo soo baxaysaa inaynu rabno waxaynu ka saarayno oo hadda isticmaalayso methodkan remove waa inaad sheegtaa waxa saarayso waxaan waxaan saarayna number 4 aynu saaraynaa kadib number 4 meesha ku arki mayno dee run taabano okay arta number 4 meesha weyn ka saarnay marka aad rabto mid specific ah oo mid cayiman inaad ka saarto waxaad qoraysaa wuxuu yahay narrow wax ka saarnaa number 5 ee dib ka saarnaa kadib meesha laga waayay number 5 meesha laga saaray okay hadda rabto inaad ka saarto mid meel yaala inka saarka maxaan yiri kaas waa 0 kaasna waa 1 2 saas soconaysa maaha haddii rabneen ka saarno ka koowaad ama ka 0 ku jira waxaan kana list waxaad ka saartaa bob ee isticmaalna bob wuxuu ka saarayaa meesha waxaad ka saartaa ka 0 ah ka meesha 0 waad 0 ku jira ka saar oo 1 ah 1 ka laga saaray meesha arta okay saas ma uga saari kartaa sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad tiraahdo list.clear haddaad clear tiraahdo waxa dhan waa masaxaya waxaan oo dhan waa la masaxaya oo remove gareynaya list haddaynu idhaahno list waa maran yahay okay intaas misla fahanay sidoo kale waxaan samayn karnaa inaynu laba list isku darno haddaynu idhaahno iminka tusaalaha listka soo maaha 1 2 3 4 5 waxaan samaynaa list labaad oo ah list 2 wuxuu la mid yahay 7 waan idhaahdo 6 7 8 ayuu la mid yahay kadib haddaan rabo inaan labada list isku daro waxaan sameynayaa simply waxaan odhanayaa list
listkii koowaad dot extend kadib halka waxaan ku qorayaa listka rabo inaan ku daro waxaan rabaa inaan ku daro listka labaad ma fahanteen kadib dot u dabcan list waxaan noo soo baxaysaa labadii list oo isku jira kan wuxuu ahaa 1 2 3 4 5 6 7 8 xagga dambe laga sii daray okay sidoo kale waxaan samayn karnaa listka kala horeysiino iminka tusaale ahaan kale listkan uu qasin yahay ma aragtid 1 2 3 8 baa dhexda ku jira 6 xagga dambe u yaala halka hadii rabno inaan kala horeysiino waxaan isticmaalaynaa wax loogu magacaabo sort then rahno list dot sort kadib aan soo daawacno list reeshan taawano waxaa soo baxaya 1 2 3 4 5 kuma jiro 6 baa ku xiga 7 8 8 9 8 10 okay hadii rabno inaan qorno si reverse waxaa list dot halkii sort ka baabi reverse kadibna xagga dambe ayaa laga soo bilaabayaa listkii intaas isla fahanay waxyaabahaas ay ku samayn kartaa list hore waxaan soo marnay in list iyo tuple ay isku mid yihiin balse waxa kaliya ku kala duwan yihiin ay tahay in listka wax laga bedeli karo balse aan tupleka waxba laga bedeli karin intaas waa clear baa filaya okay sidoo kale maanta waxay qaadayna wax lagu magacaabo for and while loops for iyo while loops waa laba ka mid functionada programming ugu caasan ee luqad kastaba ay leedahay waxyaabaha loo isticmaalo functionska waxa ka mid in lagu soo celceliyo codeska oo loop lagu sameeyo loop waxa weeye in codeskii dhowr tiro badan la isticmaali karo ama dhowr jeer lagu soo celcelin karo marka halkii aad maanta ku qori lahayd mar kastaba waxaad isticmaalaysaa loopkaasna wuxuu kaa caawinayaa inaad mar kastaba qorin oo aad hal mar qorto kadibna halkaa mar aad dib u isticmaali karto okay haddaba maxay ku kala duwan yihiin for loop iyo while loop for loop waxaa loo isticmaalaa markaad garanayso inta jeer ee aad soo celinayso koodhkan haddaad garanayso inta jeer aad soo celinayso koodhkan waxaad isticmaalaysaa for loop haddii aadan garanayn inta jeer aad soo celinayso ama rabto inaad soo celiso waxaad isticmaalaysaa while waxaad ku xidhaysaa condition aad ku xidhaysaa ilaa inta conditionkaasi run tahay ama ay true tahay koodhka waa la soo celinayaa marka ay conditionka noqoto false ay noqoto ayaa la joojinayaa in la isticmaalo ama la soo celiyo koodhkan okay iminka tusaale ahaan kale list ayaan haysanaa listkan waxaa weeyaan wuxuu nooga kooban yahay 1 2 3 4 5 6 okay kadib waxaan odhanaynaa for items ama for I in ay ku guda jira listiga halkaas ayaa daba ku qoraysaa conditionka rabto iyo waxa rabto in la fuliyo haddii inta tusaale ahaan kale waxaan odhanaynaa haddii listka wax ku jira if rabnaa inaan ogaano in waxyaabaha listkaas ku jira ay ka weyn yihiin 10 ama 0 tusaale ahaan kale kadibna waxaan odhanaynaa if I oo taagan itemskan ama waxyaabaha ku jira listka uu ka weyn yahay 0 print waxaa soo daabacdaa itemska soo daabac ama waxaad tidhaahdaaba print waxaa soo daabacdaa uu ka weyn yahay 0 gaaro wax dhigtaa I okay kadib waxaa soo baxday 1 uu ka weyn yahay 0 2 uu ka weyn yahay 0 3 uu ka weyn yahay 0 4 uu ka weyn yahay 0 ilaa dhamaadka maarta ilaa inta ay conditionka ama waxa aynu ku xidhnay uu run yahay uu daabacaya koodhkan waa la isticmaalayaa mar alle markuu koodhkaas noqdo been ama false noqdo waa laga joojinayaa iminka tusaale haddaynu idhaahno markasta iminka haddii halkaas 0 ku bedelno 10 ilaa inta uu 10 ka weyn yahay waxaa soo daabacdo uu ka weyn yahay 10 marka
imka condition kan waa been condition kan ma aha mid shaqeynaya waayo liskana kuma jiro wax 10 ka weyn deen saaran garayno wayna wasa bixayaan waayo ma jiro wax ka weyn balse hadda xaga ku darno laba number oo ah 19 iyo 18 19 iyo 28 kadib waxaa noo soo baxaya in labada number ay ka weyn yihiin 10 19 ka weyn yahay 10 still 10 ka weyn yahay 10 ma fahantay okay waxaan sameynaa tusaale kale waxaan odhanaynaa for I ama a badhe ama xaraf kala badhe for I in range 100 وقل if I equal to equals 0 print wa if a number okay haddaba koodkan qornay waxa weeye lambarada waa 0 ilaa 100 ilaa 100 haddii rabno inaan helno inta ifan number waxa weeyaan lambarada u qaybsami kara laba lambarada laba ay qaybin karto hal lagu magacaabaa ifan number haddii aan rabno inaynu soo saarno lambarada laba qaybin karto ee ku jira range-ga 0 ilaa 100 si fudud ayuu soo saari karnaa inagoo qorayna koodkan imika koodkan wuxuu noo soo saaraya inta ifan number ay ku jirta 0 ilaa 100 adii doona imika kordhin karna wax ka dhigi karnaa 0 ilaa 1000 ama 1000 number ayuu noo baaraya hadaynu imika ran taabano waxaa noo soo baxaya intaas oo ifan ah 0 waa ifan number 2 waa ifan number saas wad ilaa iyo wuxuu ku joojinayaa ilaa 998 oo ifan number ah okay haddii rabno inaynu ka baarno iyagana kuwa orka ah ama ay laba qaybinna xoreyna lambarada aanay laba qaybin halkaas un ka dhig calaamatu cajab oo ah not u taagan then no run waxaa noo saaraya kuwa aan laba qaybin ayuu ka bilaabaya 1 3 5 7 lambarada aanay laba qaybin ayuu noo saaraya afan soma okay intaasna waa intaa haddaba haddaynu galno while loop while waxaa loo isticmaalayaa markaadan garanayn inta jeer ee conditionkani soo noqonayo inta jeer ee la soo celinayo koodkan haddaba while waxaa iyadana loo isticmaalayaa in lagu soo celiyo koodiska tusaale ahaan hadaynu idhaahno haddaynu dib u isticmaalno tusaalihii aynu ku soo saaraynay ifanka isagoo while ah while inagoo isticmaalayna while loop waxaynu odhan karnaa ifan equals 0 then while ifan wuu ka yar yahay marka halka waxaad gelinaysaa toban lambarkaad rabto inaad kasoo dhex saarto ifan waxaan odhanayaa range-ga waxa weeyaan waa 100 ba dheh 100 ka yar yahay 100 haddii ifan wixii ka soo bax marka loo qaybiyo laba uu haraagu yahay 0 aan waxba soo harayn then haddii laba qaybsamayso then hawraysaa print waxaa daawacdaa ifan iyo waa ifan number okay kadibna marka intaas samee waxaa ku daraysaa 1 kadib waxaanaa even plus equal 1 plus equal waa qaab yar oo fudud aad u qori karto 1 halka odhan lahayd equals even plus 1 waa isku mid qaabkan ayaa fudud qaabkan aad u qori kartaa sidoo kale even plus equals 1 marata sidoo kale ayuu nagu soo saaray 98 waa even number oo kasoo bilaabay 0 1 2 3 okay haddaba haddii yar sharaxno koodkan markasta oo la fulinayo conditionkan loo eego in loo qaybiyo laba waxaa lagu darayaa hal haddii aan hal lagu darin er ayuu noo soo saarayaa waayo markasta waxaa lasoo celinayaa isla halkii lambar oo ahaa 0 marka tusaale haddii ka tagnay inta dambe
aynu sidaan ku rangarayno waxaa noo soo saaraya l maaragtaa 0 ayaa la soo celinaya markasta balse haddii aan ku darno haddii markastaba hal ku darno waxay noqonaysaa inay soo baxdo tiro ifan ah ay noo soo baxaysa markastaba oo la rangareeyo wax soo baxaysa in tirada soo baxday loogu daro tirada soo baxday in loo qaybiyo 2 haddii tiradaas 2 u qaybsanto waxay noqonaysaa ifan haddii u qaybsan weydana waxa lagu daraya hal kale si loo eego in mar labaad qaybsamayso haddii marka labaad qaybsanto waa la soo daabacaya haddii ay qaybsan weydana lama soo daabacayo haddii rabnayna soo daabacno kuwa orkaana halkan aynu odhanaa marka aanu ahayn mid u qaybsamaya 2 ayaan soo daabacayno maarta 1 3 halkan ayaan bedelno halkan waa odd numberkani waa odd number muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egyahay waxaanu telegramkeena soo gelin doonaa cashiro badan oo ku saabsan sida loo isticmaalayo while loop iyo for loop oo PDFs ah marka halkaasaad kala socon kartaa linkiguna waxuu yaalaa descriptionka kuna soo biir sidoo kale haddii aad qabto waxyaabo su'aalo ah ama uu error ka qabsado Python halkaas ayaad ugu soo gudbin kartaa mahadsanid